kulan wanaagsan saaxiibayaal dalka Myanmar militariga ayaa afgambiyay dawladdii sharciga ahayd. هكذا بدا الحال مع إعلان الجيش في ميانمار إمساكه بزمام السلطة في البلاد لمدة عام وفرض حالة الطوارئ. جزيرة سقطرى waxaa la leeyahay biriloqo iyo boob ayaa lagu hayaa khayraadkeeda. استحواذ على جزيرة سقطرى. waxaan sidoo kale idin haynaa macluumaad ku saabsan ka bixitaanka militariga NATO ee Afghanistan oo ay wax iska bedeleen. Soo dhawaada. marka la soo dhawaada waxaanu warbixinadeena ku bilaabanaynaa dalka Myanmar oo sidoo kalena loo yaqaano Burma. ciidamada ayaa xaalad degdeg ah geliyay waxa ayna xabsiga dhigeen hogaamiyaha sharciga ah ee xisbiga talada haya ee NLD ee laga soo gaabiyo xisbiga qaran ee dimuqraadiyadda Aung San Suu Kyi iyo madax kale. sarkaal ciidan oo arunimadii isniinta maanta ah ka soo muuqday warbaahinta ayaa ku dhawaaqay in ciidamada oo ka jawaabaya doorashadii wax isdabamarinta ahayd ay aqlabiyadda ku guuleysteen xisbiga NLD ay talada la wareegeen. war qoraar oo laga sii daayay telefishinkaas ay leeyihiin militariga ayaa lagu sheegay in General Min Aung Hlaing uu la wareegay talada wadanka isla markaana xaalad degdeg ah lagu soo rogay muddo hal sano ah. magaalooyinka waaweyn oo ay ku jiraan caasimadda iyo magaalada ganacsiga wadanka ee Yonga ayaa laga soo wariyay in wadooyinka lagu arki karay ciidamo hubaysan oo feejignaani ka muuqato iyo gaadiidka gaashaaman. Mio Nyunto oo ah afayeenka NLD ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in xaaladda uu galay wadanka ay u arkaan in militarigu sameeyeen afgambi. xisbiga NLD oo soo saaray war-saxaafadeed lagu adeegsaday magaca hogaamiye Aung San Suu Kyi ayaa ugu jeediyay shacabka Myanmar inaysan aqbalin inqilaabka militari. falalka militarigu waa ficilo lagu doonayo in dalka dib loogu celiyo xukunka litalis ah ayaa lagu yiri bayaanka. waxaan ku boorinaynaa dadweynaha inaysan aqbalin waa inay ka jawaabaan oo ay si kal iyo laab ah uga mudaaharadaan afgambiga ay sameeyeen militariga ayuu sii raaciyay bayaanku. falcelinada wadamada dibadda iyo ururada caalamiga ah waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo qoraal ka soo baxay ku tiri Antonio Guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay wuxuu si adag u cambaareeyay xariga hogaamiyaasha rayidka ah ee Myanmar maalin ka hor furitaanka kalfadhiga baarlamaanka cusub ee wadanka. wuxuu sidoo kale muujiyay walaaca weyn ee uu ka qabo ku dhawaaqista dhammaan awoodaha sharci dejinta, fulinta iyo awoodda garsoorka ee ay militarigu qabsadeen. wuxuuna raaciyay in tallaabooyinkan ay ka dhigan yihiin rarbaaxa culus oo ku dhacday dib u habeynta dimuqraadiyadda Myanmar. dowladda Mareykankana afayeenad u hadashay madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden ayaa sheegtay in Washington ay ka nixiyeen warbixinada ku saabsan militariga Myanmar ee ah tallaabooyinka lagu waxyeeleynayo isbeddelka dimuqraadiyadeed ee wadanka iyo weliba xariga Aung San Suu Kyi iyo hogaamiyayaasha kale ee rayidka ah. Mareykanku wuxuu ka soo horjeedaa isku day kastoo lagu doonayo in lagu bedelo natiijada doorashadii dhawaan qabsoontay ama lagu carqaladeynayo kala guurka dimuqraadiyadda ee Myanmar. wuxuuna tallaabo ka qaadi doonaa kuwa mas'uulka ka ah haddii tallaabooyinkan aan laga noqon ayay hadalkeeda ku dartay Jan Psaki afayeenka Biden. xogayaha arrimaha dibadda ee Washington Anthony J. Blinken ayaa sidoo kale bayaan uu soo saaray ku muujiyay walaac aad u weyn wuxuuna ku booriyay militariga inay si dhaqso leh uga noqdaan ficiladooda. waxaan ugu yeeraynaa hogaamiyaasha militariga Burma inay sii daayaan dhammaan saraakiisha dawladda iyo hogaamiyaasha bulshada rayidka ah ayna ixtiraamaan rabitaanka dadka Burma sida ay muujiyeen doorashooyinkii dimuqraadiga ahaa ee qabsoomay 8 November. Mareykanku wuxuu la garab taagan yahay dadka Burma himilooyinkooda dimuqraadiyadda, xorriyadda, nabadda iyo horumarka ayuu yiri xoghaye Blinken. dalka Britain ra'iisul wasaaraha oo qoraal kooban soo dhigay tirsigiisa Twitterka ayaa dhaleeceeyay dhacdada militariga Myanmar ama Burma qaadeen. waxa uu ra'iisul wasaare Boris Johnson qoraalkiisa ku yiri codaynta dadka shacabka ah waa in la ixtiraamaa oo hogaamiyayaasha rayidka ahna la sii daayaa. wadanka dariska ah ee China ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay rajaynayaan in dhammaan dhinacyada Myanmar ay si sax ah u maareyn karaan khilaafaadkooda dastuurka iyo nidaamkooda sharci ayna ilaalin karaan xasiloonida. afhayeen Wan Wenbin oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Beijing. wasiirka arrimaha dibadda ee Australia waxa ay walaac qoto dheer ka muujisay wararka sheegaya in militariga Myanmar ay mar kale doonayaan inay la wareegaan xukunka. waxaanay xireen Aung San Suu Kyi iyo madaxweyne Win Myint. waxaana qoraalkeeda ay ku tiri waxaan u jeedinaynaa militariga inay ixtiraamaan sharciga khilaafkoodana lagu xalliyo qaab sharci ah isla markaana ay si degdeg ah u sii daayaan dhammaan hogaamiyaasha rayidka ah iyo kuwa kale ee sida sharci darrada ah lagu xiray.
sidoo kale waxaa ka hadlay inqilaabka ka dhacay waddanka Myanmar hay-adaha xuquuqda aadamaha Human Rights Watch iyo Amnesty International oo labaduba dhaleeceeyay. dalka Afghanistan haddaan aadna isbahaysiga NATO ayaa qorsheynaya inay ciidamadooda ay ku sii hayaan waddankaasi wixii ka dambeeya bisha May oo loo madlanaa inay ka soo huleelaan dalkaasi. tallaabadaas oo la filayo inay sii kordhiso xiisadda Taliban oo dalbanaysa in si buuxda loo dhaqan geliyo heshiiskii Dooxa ee lala galay Mareykanka. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysay 4 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan gaashaanbuurta NATO ayaa axadii qortay in isbahaysiga militarigu qorsheynayo inaan si buuxda looga bixin Afghanistan marka la gaaro dhamaadka April sida uu dhigayay heshiiskii sanadkii hore Taliban iyo maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ay ku kala saxiixdeen caasimadda Qatar ee Dooxa ayaa ciidamada shisheeye waxa la filayay inay ka baxaan dalkaasi Afghanistan ugu dambeyn bisha May si looga bedesho Taliban inay joojiso weerarada ay ku hayaan ciidamada caalamiga ah. Trump ayaana hore u dhimay tirada ciidamada Mareykanka ee kaga sugnaa Afghanistan oo ahaa qiyaastii 13,500 ilaa 2,500 oo askari ka hor inta uusan xafiiska ka tagin bishii Janaayo. laakiin NATO waxay leedahay maamulka cusub ee Mareykanka waxa jiri doona isbedel dhanka siyaasadda ah. dareenka bixitaanka degdega ah ee baahsan ayaa wax laga qaban doonaa waxaanan arki karnaa istaraatiijiyadka bixitaan aad u tiro badan sida laga soo xigtay wareedyada. mid ka mid ah saraakiisha ayaa sidoo kale ku andacoonaya inay jiraan shuruudo aan la buuxin oo uu dabcan uga jeeday inaysan ka soo bixin kooxda Taliban. saraakiisha ayaa sheegaya in qorshooyinka ku saabsan waxa dhici doona marka la gaaro April dabayaaqadeeda hadda laga baaraandagayo oo ay u badan tahay inay noqdaan qodobka ugu muhiimsan kulanka NATO ee dhacaya dhamaadka bishan. warbixintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee The Pentagon jimcihii ay ku eedeysay Taliban inaanay fulinin ballanqaadkoodii. ciidamada isbahaysiga NATO ee ku sugan Afghanistan muddo 19 sano ah ayaa waxa ay ku guuldareysteen inay ka adkaadaan kooxda Taliban. ugu dambeyntiina wasiirka gaadiidka xukuumadda isku magacaawda badbaadada qaran ee Yemen Zakaria Al-Shami ayaa sheegay in Israa'iil ay bilaqaysanayso khayraadka dabiiciga ah ee jasiiradda istaraatiijiga ah ee Soqodra oo ay Soomaaliya leedahay. nidaamka sahnuuniyadda ee huwan shaarka Imaaraadka wuxuu ka howlgalayaa Soqodra bililiqo iyo dhac ayuuna ku hayaa khayraadkeeda dabiiciga ah wuxuuna ka faa'iideysanayaa juqraafi ahaan meesha ay jasiiradaasi ku taallo saliidda cayriinka ah iyo sidoo kale awoodeeda caafimaad iyo dalxiis ee ka sokow hodantinimadeeda kale ay leedahay ayuu Al-Shami ka sheegay kulan ka dhacay magaalada caasimadda oo dalka Yemen ee Sanca. wasiirka ayaa carabka ku adkeeyay baahida degdega ah ee loo qabo in la ilaaliyo jasiiradda fog ee badda Carbeed oo u sharaxan aqoonsiga UNESCO inay tahay goob dhaxal dabiici ah oo caalami ah oo ku suntan kala duwanaanshaha iyo quruxda dabiiciga ah. jasiiradaasi Soqodra oo ay degan yihiin 60,000 oo qof waxa ay ku taalaa aag muhiim ah oo kaabiga ku haya marinka Bab al-Mandab oo ah marin weyn oo ay adeegsadaan maraakiibta iskuna xira badda Cas, gacanka Cadmeed iyo badda Carabta. waxay Soqodra leedahay nidaam deegaan oo khaas u ah. jasiiradaasi Soqodra oo ku taala badweynta Hindiya ayaa waxaa leh Soomaaliya iyadoona bishii November 30keedii 1967 ay gacanta u gashay Yemen. waxa ay xeebta Soomaaliya u jirtaa 150 mayl oo kaliya isla markaasna Soqodra waxay xeebta Yemen u jirtaa 190 mayl. jasiiradaha yaryar ee la xiriira Soqodra waxa kamid ah Abdul Khuri oo 50 mayl oo kaliya u jirta Ras Casayr oo ah Soomaaliya. waxa kale oo Soqodra hoos taga labada jasiiradood ee Samha iyo Darsa kuwaasoo loo yaqaano walaalaha waxaanay u dhaxeeyaan Khuri iyo Soqodra. warbixinadeennii ugu waaweynaa adduunka intaas ayaan ku gabagabeynaynaa waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin nabadgelyo.